أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Inshallah, I'm not going to take too much time, as you know, there are people more senior than me in age and more senior than me in knowledge. Inshallah, I'm going to give you a brief reminder. Now, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a lot of times when he explains things to the Sahaba, he tells them certain stories. And in these stories, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tells us, we can benefit a lot. And the stories Allah says in the Quran, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tells in a hadith, these are ahsan al-qasas, these are the best of stories, no doubt. Because the stories which are told by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the stories which are told by Allah in the Quran, these stories, they're different to any other stories, because these stories, they increase our iman. They increase our faith in Allah subhanahu wa ta'ala. These stories, they make us want to be better Muslims. They make us want to fear Allah more and strive to our utmost best to be like them. So, with that said, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he said in a hadith that once there was a man, and this man, he was a murderer. It's a man that murdered, or he killed 99 people. Imagine, one person, single-handedly, he killed 99 people. And this person that killed 99 people, he felt some sort of regret. He felt
a bit bad, and he thought, you know what, I want to make a change. I want to repent to Allah. I want to become better. So he went to this person, an abid, a person who used to worship Allah, a person who sat in the masjid. He didn't have a lot of ilm, he didn't have a lot of knowledge, but he's a person who used to pray and worship Allah to his utmost best. So he went to this abid, this worshipper of Allah, and he asked him this question. He asked him, I've killed 99 people. Is there any way Allah can forgive me? This man is shocked. Killing one person is bad enough. So when he heard you killed 99 people, he was in such a state of shock. He said, there's no way Allah will ever forgive you. You killed 99 people, you will never be forgiven, he said. So the man thought, oh, I'm not going to get forgiven. So he takes out his sword, kills him, and makes 100. I think, what's the point? I'm not going to get forgiven, why should I stop? Again, some time passes. Now he feels regret, he feels bad. And now he takes this question to an alim, someone who has knowledge, someone who knows about Allah subhanahu wa ta'ala, his rules and regulations. So he goes to this alim, this person of knowledge, and he asks him the same question. He explains this, I killed 99 people, then I went to this person, he said I can't get forgiven, I killed him, then I made it 100. Can Allah still forgive me? And this person, this alim, this person who had knowledge of Allah, said, of course, Allah can forgive every single thing and every single thing you've done. No matter what it is, Allah can forgive. But now what he done, he put some conditions on him. He put some conditions on him, and these conditions were, for you to be forgiven, you have to leave this place of facade. This place is evil. They said you're in right now, you have to leave it, and you have to go to such and such place. You go there, and inshallah, be amongst the good people there, and you'll be forgiven. So this person that killed 99 people, he packed his stuff, he goes off to this journey. And by the decree of Allah, while he's on this journey, he passes away. He died. Now, as you know, when a person dies, there's two types of angels that can come to him. Either the angel of punishment will come to him, telling him he'll go to hellfire and rip out his soul, very painfully. Or the angel of mercy will come, taking out his soul very softly and giving him glad tidings of Jannah. So now what happened? These two angels, they came down at the same time. And these two angels, they had an argument. They were arguing as in who should take his soul. The angel of punishment say, he was supposed to get to that city, but he didn't get there. So he won't be forgiven, I'll take his soul. But the angel of mercy was saying, but he wanted to change, he was on his way. If he was alive, he would have made it, I should take his soul. So they were arguing until this argument was brought to Allah. And Allah's judgment was that they should measure the earth. That they should see where he's closest to. So if he's closer to the new place he was going to, the place where he was forgiven, if he's closer there, he'll be forgiven and the angel of mercy will take him. But if he's closer to the city he came from, which was full of evil, if he's closer to that place, then the angel of punishment will take him. So this is the interesting part. So the angels now, they were measuring the earth, seeing where he's closest to. So now as they were measuring it, they found that he was, some hadith say he was like a handspan. He was like a handspan closer to the place he came from, the evil place. And remember what that means. If he's closer to that place, it means the angel of punishment will take him. But because Allah subhanahu wa ta'ala is so merciful, because Allah subhanahu wa ta'ala is Ar-Rahman Ar-Rahim, because He's so merciful, Allah subhanahu wa ta'ala, He literally made the earth shrink. He literally made the earth shrink so that He would be closer to the place He was going to, the place where He would be forgiven. So He was closer to there, and then at the end He was forgiven and the angel of mercy took Him. So what's the point of me telling this now? The point of me telling you this is because if Allah subhanahu wa ta'ala, He can forgive a person that killed 100 people, I am sure none of you killed 100 people. I'm sure none of you killed one person. Okay? If Allah subhanahu wa ta'ala
can forgive someone that killed 100 people, then of course Allah subhanahu wa ta'ala, He can forgive all the things we've done as well. So now some of you might think, okay, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد كلمتي waxaan u qaybinayaa laba qaybood. qayb ardayda iska leh qaybna waalidiinta. ardayda waxaan u malaynayaa af ingiriis ay wax ku fahmahayaan oo ingiriis uga sahlan yahay. marka waxaan ka bilaabayaa insha Allah dhalinyarada. When we die or we pass away, we meet Allah, we face Allah, and Allah will ask us a question. The first question Allah will ask us, we have to remember that question. And we have to be aware of that question, because all of us, we meet Allah. That question is not what you are wearing. For example, the children like to wear what is called Nike, and something else, what is called another name, another brand. I don't remember what it's called. Yeah. Adidas, yes. They like Adidas and Nike. Allah is not asking you Adidas and Nike. Allah is not asking you World Cup football. Allah is not asking you whether you get A+ or whatever you got in studies. Allah is asking you one question. You have to be aware of that question. You have to prepare ourselves for that question. That question is Hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. أول ما يحاسب به العبد الصلاة. The first thing you are accountable in front of Allah is the salah. That means you have to learn salah. عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أنا كلي واحد مسلم أنت وراني معنا إن شاء الله تعالى ما أقولكم. وحنم علينا يا هذا واحد ما أروح عن كهذا لين الجرين. المها هو اللي يسوى هذا لين والد كان هو اللي يسوى هذا لين. لكن هو حنقدر يعني هو كل كي أندور إنه نوحته سنو أو مركي أندور إنه من الصوص أرنو أصل كمان منه مال بنانا كمان صوبه ماشي اللي مو غير لها مو باهية فحرم لنا صوص أرنو أولاد سنة واحد كملتها المجتمع عنا مجتمع سوين وياهي مجتمع يسوي توصوين وياهي مجتمع مركي وياهي مجتمع إلهي تحرر سبحانه وتعالى هو إلهي جرجال شكوى حسن جرين مجتمع إنه نهاي إنه هذا اللي باتيسيه إذا تدا وحن كقبل حكروه كقبل بكروه وأين المرة إلهي سبحانه وتعالى جد من أمرين إلهينا سبحانه وتعالى أن كبرنا سائل مركا أوهي الله دودي أن وهي لحنوك إنها ربي سبحانه وتعالى بنوشة يقفك أدو إلهي كبر وينه يلي مخرج يمير كبر فحن شكي قلت جرين أمدا إنه نهاينا يتعمدك لتكتي وآدي آدي سوخي لافتي guryaha iskhilaafkooda waxa ka horeeyay umada inay inteedii kaleeto ay isqorkii hore si kala dhaqaaqday ikhtilaafku wuxuu hadda maraya meeshii ugu dambeysay ee ugu hooseysay ee salka ahaa ee wax ka soo dhismi lahaa maraya waxaasina wax sharciga islaamka amraya ma aha ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inoo diiday waa inoo diiday waxaad ogaataa qof walba oo muslim oo caqli leh waxay lagu dhex jiraa meelihii ilaahay subhanahu wa ta'ala inooga diiday waxaan degnay ilaahay meeshii inooga diiday وحين ندرس نهاية نلجوا نقول إله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تمسكوا بالنار وحين نبرك دورنا إلى إنه بالمجتمع بيننا هي مسلمة غفك بالوادن كوين وحيرين هي وحي إلى شر وين وجنوا وحين نوي إلى شر نوي دين تنا وين إنه كل يرزقنا الله سيدي إنه دين تنا إسلام كانوا
أنو إلى شام لهي إلهي سبحانه وتعالى من نظر إلهي نسي والنعمة نعمة كل كي أذكرنا يصوم بعض هيسن كرتا نعمة إلهي سبحانه وتعالى ونسي جهد فربضان بين ربهم هين إنه هيسن هاي لكن هذيك كلاته وأن ضيع منا إنك ضيع منا إنه دينت إلهي إنه ضيع منا ما يسوق لكن إنك ضيع منا waxa lagu farxaa mujtamaca inuu maanta kulligii isbedel inuu muuqdo dadkii waaweynayna wax baranayaan ilmihii yaraa hadayna wax baranayaan dhalinyarooyinkii iskoolka iyo jaamacadaha balaayada yaryahay laftoodina hadda wax baranayaan waa tusaalooyin badan oo soo socda oo fiican laakiin hadafka iyo waxaynu damacsanay kow lama joogo ilaahay subxaanahu wa tacaala amaanada inoo dhiibay oo ilmuhu ay ugu horeeyaan sidii aynu u ilaashan lahayn uga soo bixi lahayn alxamdulillahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى وما هتسكله runtii munaasabadahan oo kale oo waalidiintii ardaydi macallimiintii isugu imanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dikankiisa lagu xusayo waana iyo talooyin iyo aqoon isweydaarsiina la isku dhaafsanay waana waxyaabaha ugu muhiimsan runtii caruurta iyo waalidiinta iyo macallimiinta oo munaasabadahan oo kale inay ku kulmaan wax badan waa la soo tilmaamay runtii waqtiga aad isaga ciriiri u ah sida xiriiryaha ugu tilmaamay waxaan marti idinkaga ahay jaamacadda East Africa University waa jaamacadaha Soomaaliya ku yaal weeye oo runtii rumud u ah jaamacadaha waddanka waana la socotaan runtii Soomaaliya duruuf kastoo adag ay ku jirto in ay gaarsiisan tahay in waddan kastoo horumarsan facilities ku leeyihiin marka jaamacado badan oo arday badan ay runtii dhiganayaan dugsiyo sare aad u badan oo ardayda ay dhigtaan institutionno waxbarasho iyo institutionno caafimaad iyo institutionno u khidmeeyo ama u shaqeeyo bulshada u shaqeeyo waddanka dacladiisa kala duwan inay leeyihiin intaa warag baa u qumay intaad idinku qurbaha joogteen oo carruurtaa la tacaalayseen waddankuna runtii rag baa u shaqaynayay oo soo saaray kaadir aqoon leh runtii aanu rajaynayna hadduu alla subxaana wa tacaala yidhaahdo mustaqbalka waddanka inay wax badan ka qabtaan yes duruuf adag buu ku jiraa oo dee ruuc qarni ku dhowaad in central governmentigii wax badan uu kaga maqan yahay maamullo horumarayna inay jiraaniin waa la socotaaniin oo runtii wax badan ka qabto waddanka laakiin miisada ama waxyaabaha runtii uu aad ula goonida yahay oo aan marnaba la qiyaasi karin horumarka uu leeyahay waxay tahay in institutionno waxbarashay ka dhisan yihiin la postgraduate master lagu diyaaray waddanka gudihiisa oo intaba ay wada yihiin dad aqoon leh ay diyaariyeen oo runtii private wada ah oo dowlada iyo hay-ada dawli ah صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. هذا الكوال اللي هذا الكمدر دريو وأنا لقى جيسية وأنا ملاينيا حان كليا أنا وأنا ماركتي إذا حسوسينا يا بشي رمضان باي نقص وفور لهذا وبشي قرآن كويه وحن والدك كل دردار بيا in ay carruurta waaweyn sidii aan ugu tarbiyadayn lahaayeen maadaama tarbiyadda laga soo hadlayay fagaaraha ugu weyn ee maaragtay in ilmaha lagu tababari karayo inay ramadaanku tahay marka insha allahu tacaala bisha ramadaan inaad ku dadaashaan inay qur-aankana aada u akhriyaan salaada la nooleeyo xataa haddii lagu tababarto salaada guriga laga dayici jiray waa waqti fiican oo hadda maaragtay go-aan lagu gaari karayo sanadka oo dhan in guri uu noqdo salaada maaragtay laga nooleeyo oo qur-aanka laga akhriyo oo maaragtay bishii ramadaan khayraadkeedii oo dhan in maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala weyn loo dhigto taas baan insha allahu tacaala idinkula dardaarmayaa waxaan kaloo oon iclaan ahaan idinku sheegayaa insha allahu tacaala ramadaanta halkan aan joogno waan ku tukan doonaa
salaadii taraawiixda lagu tukan doonaa marka insha allahu tacaala dumarkana meel baa loo samayn doonaa iyada laftigeeda inkastoo inta hore ilmuhu ay arday ay yihiin oo iskuulkii uu furan yahay laakiin marka dambe iskuullada la xidho insha allahu tacaala in iyaga la keeno laftigoodii oo ay taraawiixdii ku tukadaan sabtida iyo axadda la keeno oo ay taraawiixdii ku tukadaan oo iyaga laftigooda ay yimaadaan oo ay nooleeyaan habeenada qaar marka insha allahu tacaala sidaasna maaragtay waxaan iclaankaasaan idinku maaragtay soo jeedinayaa hadalkaygana intaasaan kusoo khatimaya insha allah بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دمان مدشن يا حفلتنا دمان والدينتا يا علماء يا أرضيدا يا مرتدى سوت من دمانتين بعد ما هتسنتهين وجزاكم الله خيرا وإلهي سبحانه وتعالى وحان كبرينا إنه كدغو وتعالى إنه قد بدأ مدرستنا صادر كيسانبا وحاد قيمة بدن وحي وشرفت بدنا وقيمها بدنا بين كهينا سألتنا إلهي سبحانه وتعالى أدون كان هل شيء ودحدقة أرنكاس لدحدقة أدون on أبورنين وكلام الله وهلك الشيء on مخلوق أهين أدون كدحيا وكلام الله وهذا الكيلة هيوي هذا الكيلة هي بين ما انتهينا هذا الكيلة هي بين وينينينا ودبالدقينا أرضيدي برتي لما يسي أجزاء إلا يشاي تبنجوس لباتنجوس يوحي لمدة أرضيدي إسلام استادسك انتي فصلت الدحليسة نتيجة في عاكو كانتي من أمال مرنينا ساد رميسان دمانتي والدين يوحقارد يا علماء قف مركة ترتل لسوي استاجيو أما قرآن آخر الليلة ودكتين إحراجك يدبك إليه قفان ورد لسوي استاجيو ولذلك أرضيده وحلقيها أحيانا هنا أي ارتباك كوي مادو حضنا وحوين بحقيقة أنه سوق دبني دكسي كان سادكتهين با وحانو ماول كيسا لو وريقني ودو قاريسة إمك لبصنو أرضيده تربية إسلامية أما إسلام ستاتسكا وحانو بلو لمددا قدهيدا انتي كوريسي قرآن بانوديني oo maamulkii ka horeeyay maaragtay quraan uu buuhaa marka waxyaabahan ku darnay islaamic status ka imika quruxda badan ee la soo gudbiyay oo ahaa isagana insha Allah ta'ala ardaydu way wadaa wayna dhameystiraysaa insha Allah ta'ala sanadka cusubna waxyaabaha ku dari doona waxaa kamid ah biidillah al-kariim wa tafsiirka quraanka kamid ah iyo tarbiyada islaamiga oo la sii xoojiyay biidillah al-kariim waxaan waalidka aan ka mahad celinaa sida qiimaha badan ay uga soo qayb galeen xafladan insha Allah ta'ala culimada sidoo kale iyo waxgaradka iyo martida qiimaha badan ilaahay subhanahu wa ta'ala haydu ku daraano leenahay iimaankiina ilaahay ku ziyaadiyo ajirkiina ilaahay kulli bilaabo ولذلك وحيابها إيمانك زيادة وحاكم الأعماش الصالحة كإلهي سبحانه وتعالى خير من هذه القصير دكسيغان هذا كيسان وحوي وحا ugu qiimaha badan ee lagu hayo waxa kamid ah sidoo kale waa tajwiidka iyo makharij al-huruf oo ciyaalka runtii xaqiiqatan waxa ugu dhibka badan ee maaragtay macallimiintu sabarka badan ay ku bixiyaan waa makharij al-huruf iyo sifaat ولذلك إن شاء الله تعالى كلنا دنبه يترتنا دنبه وقيمة بدن إن شاء الله تعالى بيسوا بندق دونا آدي بعد ما هتسنتهين جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. وحين صاحب جمعي أنا أنصد بالبيني فتفسير في السعودية لو كنت تحترمك إلى لو أحترمك مدرسة المعرفة إسلام سكوب وحين آدم من هذا العنان أمان والدين خصوصا قيب جليل ومكتير شرفت لهم وحين سيخاصة إيو والدين شرفت لهم ووقت ونصهري وحين سوى كل أمها العنان أنت الله علي أنت قيب حانتين حفلدان أبشر إليه
waxaan si gaar ugu mahad celinaa ilmihii ku guulaystay prizes-ka qiimaha badnaa oo runtii maasha allah iyo ilmihii halkan noogu soo bandhigay knowledge-kooda anigoo idinna assalaamu calaykum waraxmatullaahi